magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay carwo casri ah taasoo lagu iibin doono hilibka noocyada kala duwan iyo sidoo kale khudaarta noocyada kala duwan. Carwadan oo magac daray Carwo Mondaren Buncheri munaasabad kooban carwadaasi xadhigay lagaga jiray ayaa ka qabsoontay afaafka hore carwadaasi. Waxa ka soo qayb galay xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur isuduwaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo sidoo kale kalluumaysiga gobolka Togdheer Cabdi Muuse Jaamac Cabdi Hindi iyo sidoo kale mas'uuliyiinta carwadaasi. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Dr. Cabdi Deeq Maxamuud oo ah mid ka mid ah mas'uuliyiinta carwadaasi waxaanu ka warbixiyay waxyaabaha ay u qaban doonto bulshada ku dhaqan magaalada Burco waxaana hadaladiisii ka mid ahaa inaad nagala soo qayb gasheen xafladan aynu xadhiga kaga jarayno meheradan cusub ee Burco Mondaren Buncheri. meheradani waxay haysaa oo insha Allah taala bulshada reer Burco aan ugu soo kordhinaynaa hilib nadiif ah caafimaadkiisa la hubiyay qiimihiisuna uu ka jaban yahay qiimihii hore magaalada looga iibsan jiray hilibka. saddexda qodob insha Allah waan bulshada ku soo kordhinaynaa. meheradan waa meheradii koowaad ee 5 meheradood ee inta sanadkan lagu jiro laga furi doono magaalada Burco hadii Ilaahay yiraahdo oo ay furi doonto shirkadan Burco Mondaren Buncheri. fikradan waxay ka timi aniga saldhigaygu waxa weeyaan xanaanada xoolaha. marka hore waa dhakhtar xoolaad baan ahay. hamiga qarankuna waxa weeyaan in bulshada reer Soomaaliland ay hesho hilib nadiif ah isla markaana caafimaadkiisa la hubiyay qiimihiisuna mar walba macquul yahay. inagoo taa ka duulayna waxaan maanta bulshada Burco aan nasiib u siinaynaa inay helaan hilibka waqti kasta oo ay u baahdaan. meheradanuna ay magarasa goor kasta insha Allah u furnaan doonto laga bilaabo 5 subaxnimo ilaa 9 habeenimo ay u furnaan doonto iyadoo mar walba hilib tayadiisa la hubiyay ka iibin doonto. waa hilibka iyo kalluunka iyo digaaga iyo wax kasta oo la halmaalay oonta xoolaha oo dhan insha Allah taala. geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo kalluumaysiga gobolka Togdheer kuwaas oo soo dhaweeyay carwadan ganacsiyeedkan cusub waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida uu sheegay Cabdi Deeq oo ah khabiir dhakhtar caafimaadka xoolaha ah oo takhasus dheeraad ah u leh caafimaadka xoolaha maantana daah furaya meheradan hilib tayaysan oo caafimaadkiisuna fiican yahay. nasiib wanaag Cabdi Deeq marka hore professionkiisii oo ayuu aad iyo aad u muujiyay tusayna dadka in wax tayaysan oo qurux badan oo aan ur iyo wax dareen toona lahayn oo dadka caafimaadkoodii kor u qaadaya in uu sameeyo bulshadana uu horseeday waxaan hore uga jiri jirin halkan. waxa maanta halkan aynu ka furaynaa ama ka daahfuraynaa meherada tan qiimaha leh ee casriga ah ee uu Dr. Cabdi Deeq waa ninkan dhalinyarta baan runtii u soo dhaweynaynaa. waxtar weyn buu soo kordhiyay hilib caafimaad qaba oo nadiif ah kalluunkii baa ku jira digaagii baa ku jira anwaacda hilibka bini'aadamku cuno oo dhan ninkan uu hayaa. waxaanu leenahay dadweynaha reer Burco ninka Cabdi Deeq wuxuu soo kordhiyay wax weyn oo qiimo leh wixii wanaagsanna waa la iskaga daydaa. waxaan leeyahay reer Burco ninka maanta waxtarka dhalinyarta uu noo soo kordhiyay hilibka freshka ah ee nadiifta ah aan meel duqsi lahayn ee siiga ku dhacayn aan cadceed lahayn aan wax allaale wax caafimaadka wax yeelaya lahayn waxaanu leenahay lagaga dayb. ugu dambeyntii waxa si rasmi ah xadhigan carwada uga jaray xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco waana markii koobaad ee carwo noocan laga hirgeliyay gudaha magaalada Burco. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar Somni News TV magaalada Burco.